cid walba ay ku cibro qaato in qofku hadduu doonayo in wanaag kaga tagana wanaag ku wareejiyo sidii doorashadii dalka ka dhacday xalaashayda darkaysay maalintii sidii la isugu saacabinayay madaxweynaha hore daahir yaale madaxweynaha cusub Axmed Siilaayo ku wareejiyay wadigaarka ay ummadda dhan ugu hambalyeynaysa waxa hadduu doono inuu wadarkaysidii wadadii mareen dictatorradii oo dhan mareen way xusub maarka maalintii uu isku yara dhajiyay runta marka la sheego dad badan waxay arkayeen uu isku yara dhajiyay taasi way yara dhaawacday sharaftiisa hadii laakiin maalintii markiiba uu iska wareejin lahaa sidii bin cali oo kale waxa dhici lahayd inuu magac yeesho laakiin waxa dooday inuu magaciisa u dhaawacmay أنت خير وبشارة جئتنا أهلا وسهلا أنت خير وبشارة مرحبا يا فخر مصري مرحبا رمز الحضارة مرحبا يا فخر مصري مرحبا رمز الحضارة أنت في قلبي يا نور والكلام أنت في قلبي يا نور والكلام منذ حد شمس تعيشنا لم يجد منكم زيارة منذ حد شمس تعيشنا لم يجد منكم زيارة أرض طنط يا مبارك إنها أرض الطهارة أرض طنط يا مبارك إنها أرض الطهارة مرحبا يا فخر مصري مرحبا رمز الحضارة مرحبا يا فخر مصري مرحبا رمز الحضارة أنت في قلبي يا نور وكلامنا كم يهم يوما جدارا وكذا الإسلام فينا كم يهم يوما جدارا مرحبا يا فخر مصري مرحبا رمز الحضارة مرحبا يا فخر مصري مرحبا رمز الحضارة أنت في قلبي يا نور وكلامي أنت في قلبي يا نور إن مصر هي الروح
أعياد اتقطع رمز الحضارة مرحبا يا ان احمد مدadaasi kadib waxay meelaha kale qabatay waxa kamid ah wadanka South Korea ان South Korea oo inta badan dadkan Soomaalida aanay waxa laga yaabaa aqoon badan aanay u lahayn bal muddo ayad waliba ka shaqeyso hawlo kala duwanaad ka qabatay bal ka warna warday in arinta South Korea Seoul waa arrimaha noloshayda aad u xusuustay igu cajiibka badan bayd 1987 bayd oo markaa jaamacadda aan iska joogay in markii dambena arrimaha daba ku wareegay in dabeetana laakiin TV-gii department uu shaqeeyaa dabeetana waxaan ku galnay anagoo saddex ayaanu ku galnay waxayna loo tartamay foomban buuxinay nasiibka aanu isii ka war soo khibradda eegayeen anu raga kala baan jeclayn helaan aanu saxaabta hayn laakiin khibradda eegeen waan tagay waxay bishii September 7 laga soo gaaray baa waxay igu darnayd tigirka Uniska harta nageysay meesha oo TV-gana siisay oo TV program production baa sax marka waxaan la tagay studiyaasha mid kamid ah studiyaasha caalamka ugu waaweyn ee KBS Korean Broadcast System ayaan tagaynay marka kaligeena ma ahayn dalalkan la isku yiraahdo Africa Caribbean and Pacific oo dalalkan aad sababka u ah ay ahayd marka horta waxa igu darreeyay markii aan ka fuulay diyaaradii xamar ilaa 12 saacadood ilaa Rome haddana diyaarad kale ka qaado ilaa Paris Charles de Gaulle Airport haddana 12 saacadood oo kale ma baan eegin markii dambe baan maapkii eego soo adduunyada baan ku soo wareegay haddana 12 saacadood aan ka gudbay Atlantic aan tagay Anchorage oo Mareykanka ah Alaska oo caasimadan Alaska haddana saacadii ku nasanay haddana la yiri another 12 saacadood oo kale ayaa duula Seoul ku tagaysaa 12 iyo saddex isugay wala maalmood baan diyaar saarnaa waqti ka hor wareegay marka saasaan ku tagay laakiin waan ka soo faa'iideystay waa dal dhisan oo waa doctor Mareykanku yiraahdo u taageero inkastoo dhibaatada labada Korea ay jirto 1953 dagaalkii lagu soo qaaday qoyigu ku soo qaaday shuuciga markii dambena ay qaramada midoobay oo hogaaminayso Mareykanka ay ku jiraan ay u gurmadeen oo dalkii ugu horeeyay ayaan soo ogaaday markaasi ciidamo isku jira oo dalal kala duwan oo qaramada midoobay ka socda dabeetana ay tagaan kii labaadna waxa Kuwait buu ahaa ay ka celiyaan shuucigii waa dal dhismay warshadu leeyay waa doctor baabuurta ugu waaweyn Hyundai magaalada Ulsan la yiraahdo intii aan joognayna waxaan ku taabaranay iyagana taabarayo studiyaashooda waa TV-gooda waxaan xusuustaa digital kan markaan isticmaalayno ilaa cajaladii la isticmaalayay xasawda ahaa iyagu markaas isticmaalayeen ka war waqtigaas isticmaalayeen 1987 ay isticmaalayeen markaan dhayar xagga cilmiga iyo technology ka gaaray waa doctor marka dalal badan baan wada joognay oo caalamka ah Latin America waxaan xusuustaa Brazil iyo Peru iyo jasiirada Caribbean ku yaala San Vincent la yiraahdo waxaan wada joognay xaggan Asia Maldives Allahumma salli ala Muhammad Sri Lanka India dalalka Carabta Qatar iyo Oman Africa Zaire Kenya Uganda waan xusuustaa dalal badan baan waxaan 15 dal oo dhamaantiin bay marka September 1987 September 1988 waxay qabanayeen ciyaarihii Olympiga halka waxay uga faa'iideysanayeen oo kale inay la arko oo waxa la wixii garooma ahaa oo ay dhameeyeen bay nagu dejiyeen hudheeladii ugu waaweynay madaxda ay ugu tala galeen adduunyada ay nagu dejiyeen macna indhihiina ku arkay saxaafadda caalamka tiina waxay noo diyaaray ya marka markii dambe aan teas baa la sameeyay dadka soo markasto wax la sameeyo maaha wax la qoray laakiin program baan sameeynayno waxaan marka aniga iyo laba nin oo Arab ah oo nina TV-ga Qatar ka socday Khalifa Nisf iyo nin ka socday TV-ga Oman oo Abdullah isna Dr. Abdullah ayaan ku wada sameynay programkina waxaan filayaa inaad koob haysan صح I am Khalifa from Qatar TV. I am Abdullah Haider from Oman TV. And I am Ige from Somalia. Welcome our program concerning about Islamic in Korea. Allah
1955, Turkish troops, Imam, his name is Zubair Kochi. He spread Islam in Korea during Korean War. Korea began to spread from 1955 up to now, when most of Arab and other Islamic countries opened their sincere assistance. In May 1976, the Korean Muslim Federation completed the construction of the first mosque and Islamic center in Korea. We have 10 masjid in Korea, including temporary. And Seoul and Busan. Busan is the second biggest city in Korea. And third one is Gwangju in Gyeonggi province. The Korean Muslim Federation established Islamic education centers and prayer places in some of the cities. We have Arabic Institute in our center. So we're teaching Islam to the non-Muslim for spreading Islam. The main principles of Islam in all the human being equal. Every Muslim, even he is from Africa, even he is from Japan, if he is from Korea, if he is from America, from any place, any country, if he is Muslim, he is true in prayer, he is my brother. I should believe from my heart, from my mind, he is real.